اشتاق الفؤاد متى يهل هلال ذي الحجة بإسعاد الفؤاد أتى وكل الفرح والبهجة. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم بإلهي. نبي إبراهيم وحليل وأذن dadka u iclaami xajka meel walba way ka iman doonaan baa ilaahay leeyay iyagoo luga iyo ku boglaalan yacni neef loo tababaray inuu socod dheer galo iyagoo saaran bay iman doonaan ilaahay laakiin wuxuu inoo tilmaamay liyashhaduu manaafica lahum say dadkani u soo xaadiraan oo uga qayb qaataan manaafic suurat albaqara aayaad badan baa ilaahay xajka kaga warramaya في سورة آل عمران ينا ربي واكا والرمية في سورة المائدة وربي كا والرمية سبحانه وتعالى حجك في سورة إبراهيم في سورة الحج في سورة الصافات صور كان قرآن كأنه صوت المامنة يردن أحكام حج هي مقاصد سبا إلهي سبحانه وتعالى وحبضنا كمدا وكت المامية هذا xajka waxna waa axkaam oo ku saabsiisan siduu u asaxaa iyo qofku sidee buu sidii nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam ugu xaji karaa taasi runtii dadka qaybistu way ku adagtay mahmaa la sharxo markaa practicalku uu yimaado waxbaa isweydweydaarta waxaad ka garan kartaaba saxaabadii nebi moxamed la socotay calayhi salaatu wasalaam maalintii intay wax badan isweydweydaariyeen buu nebigu lahaa ifcal walaa xaraj anugu kan baan horraysiiyey kan baan dambaysiyey ifcal walaa xaraj uu tilmaamayay nebigu calayhi salaatu wasalaam idan wixii axkaamta ku saabsani waxay ku fiican yihiin weligaaba hore u soo akhriso oo kutub soo akhri practicalku wuu ka gedisan yahay wuxuu qof kastaa u baahan yahay si practical in waxa kan loo tuso idan wixii axkaam ku saabsan malaa waxay ku fududa iyadu habeen kasta berri wixii aad qabanaysaan in la idiin sheego taasaa ugu fudud berri waxa la qabanayo iyo meesha laga bilaabayo saa loo qabanayo in habeenkaa la isu sheego laakiin haddii la wada yeedhiyo shanta cashee soo socda waxaad qaban doontaan waa hilmaan ka badanaya ama lama wada qabanayo sidaa awgeed kama warramaya axkaamta waxaase sharciga badan cibaadaadka iyo sharaa'icda ilaahay subxaana wa tacaala waajibiyey waxay leeyihiin maqaasid الshariica aw xikam الshariica oo asraar الshariica ay culimmadu yidhaahdaan ujeedooyin iyo dan fog oo laga leeyay iyo midho laga gurto waxaa marka la sameeyo haddii camalkaasi sharcigee la waajib yeelay uu waayo qasadii laga lahaa dantii laga lahaa ujeeddadii laga lahaa uu dhalin waayo ama midhihii laga rabay in laga goosto laga goosan kari waayo wuxuu iska noqdaa tuquus yacni tamtama qofka dad unaad tidhaahdo dhowr dhagaxa tuurtid oo socotid dhagxan meel lagu tuuraa waxba tari mayso iyo dhagax lagu wareegaa acmaashaynu xajka qaban doonno oo dhami haddii aad u eegto qaabka ah waxa ay yihiin waa dhagax lagu dul wareegayo laba buurood dhagxantood oo la dhex soconayo 7 jeer god aynu tegi doono dhagax lagu ridayo bannaan la fadhiisanayo bannaan habeen la seexanayo bannaan kaloo 3 habeen loo hoyanayo haddaad sidaa u eegto dee waa waxaan u muuqanaynin in ilaahayna amray mooyaane inayn wax dhow ka arki karaynin laakiin haddaad eegto ka xaj ahaan maqaasida sharcigu uu tilmaamay iyo danta laga leeyay xajku wuxuu ka mid yahay meelaha cibaadaadka oo dhami ku ururaan waxay yidhahdeen kow xajku waa caqiida caqaa'id baa lagu bartaa iyo tawxiidka in la xaqiijiyo waxaa lagu tilmaamaa xajku inay yahay cibaada ilaahay loogu dhowaado subxaana wa tacaala oo ajar laga helo xajku waa akhlaaqiyaad waa dhaqan la barto yacni islaam theory baynu hadda haysanaa waa sabirka waa dulqaadka waa cafwiga waxaasoo dhammi maskaxda waa iskaga qurux badan yihin lakiin practicalka
inta badan dadku waxay dhahaan inaga dhiciya kooxdeenni meeday wax walba way iska celiyaan inaga dhiciya iyo waxaa la hilmaamaaba wixii laysu akhrinaya ahaa in la sabro iyo in la dulqaato iyo in walaalka la iska horumariyo iyo in idan waa akhlaaqiyaadka meel lagu sameeyo xajku waa qadiya siyaasiya bay yidhaahdaan waa ijtimaac caalamiya oo caalamulislaami oo dhan madax hadday tay aqoon-yahan hadday tay culamo hadday tay dadka muslimiinta o dhan waa meel ay isugu yimaadaan walidalik bay saxaabadii qaabka u arkayaan cumar bin alkhataab maamuladii islaamiga wuxuu odhan jiray ragga maamuloo dhan governorsku ha yimaadaan xajka dadka wixii eed sheeganayaana ha yimaadaan idan wuxuu ahaan jiray meel qadaaya alumma alislaamiya lagu gorfeeyo ayuu xajku yahay xajku waa meel la ogol yahay tijaare iyo iqtisaad haddii si dhaba looga faa'iidaysan lahaa waa meel la rabo caalamulislaami wuxuu soo saaro o dhan inuu isku weydaarsado oo dadka muslimiinta o dhamme macrad ay isugu yimaadaan oo cid waliba waxay keento ama waxay samayso ay soo bandhigi karto waa cibaadooyinka buu ka mid yahay tijaaradu ku dhex bannaan tahay iyadoo aad cibaadaysanaysa tijaaraysanna kartaa xajku markaynu si kale u eegno waa siyaaxa waa tourism oo xaggaad tegaysaa waxaad tuurgaraynaysaa meelahay ambiyadii imka masjid khiif baynu tegi doonaa oo 70 nebi uu nebi maxamed ku tilmaamaya inay yimaadeen meel 70 nebi mareen ka waran ama marka lagu yidhaahdo awalu beyt loo dhiso cibaadaba dunida korkeedaba gurigii koowaad ee cibaado loo dhisay inaad timaado idan waa siyaaxa saalixiinta raadkoodii iyo dhulkay dadkii wanaagsanaa joogeen aada soo arkayso xajku waa meel lagu barto thaqaafatu salaam thaqaafada nabadgelyada markaad soo gasho xaramka wax kasta oo jooga waad nabadgelinaysaa lagama ugaadhsan karo oo shimbirteeda lama didin karo oo qodaxdiisa lama jebin karo oo geedkiisa lama goyn karo oo waxbaba waa inaad qof nabadeed noqoto maxaad u malaynaysaa bini aadamka inaad xaaji disho ama riixda ama boobto daaye waxa lagu yidhi shimbiraha iyo dhirta iyo geedaha iyo waxa ku yaala iyo ugaadheeda aanaad ugaadhsan karin idan thaqaafatu salaam waa meelu qofka muslimka ay ku sameeyo xajku waxay yidhahdaan waa misfaat ruuxiya waa meel dembiga la yskaga maydho waa meel la ysku saafi yeelo xajka waxay ku tilmaamaan waa dikriyaad waa meel lagu xasuusto reerkii ilaahay isu dhiibay ilaahay qur-aanka in badan kaga warramay haajara nebi ismaaciil nebi ibraahim oo qisadooda ilaahay subxaana wa tacaala qur-aanka in badan kaga warramayo xajku waxay yidhaahdaan waa meel lagu muujiyo huwiyat lumma identityga ummaddu ay leedahay identityga oo dadkani leeyihin waa tawxiidka ma aha midabka ma aha qowmiyadaad ka tirsantahay ma aha shacabka ma aha kullu shucuub oo dhan isu kaalayaa la yidhi kullu lqowmiyaat dunida wixii dadku noolaay oo dhan haddana waxaa la rabaa huwiya waaxida identity keliya inay muujiyaan identitygaasi waa tawxiidka idan waxaasoo dhan qur-aanku si ballaadhan buu uga warramayaa aynu sheegnay ee aynu magacawnay sunnada nebiga calayhi salaatu wasalaamna si ballaadhan bay uga warramaysaa